موجود ولا لا قبل كبنادر oo si toos hadda uga furmaaya magaalada Muqdisho waa maantii dhamaantiina waxaan oo intii ugu horeysay gobolka banaadir digafo لو ما خونا كده كنا قبره لو ما خلوا رجال لو انتوا سيدي لو انتوا قبلنا لو رجال كل حتى ابو سعد عمل ابو سعد مش او عم بدور بنكتب انا الحمد لله هو خير اسبيسنا استغل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد ما دي دونا مانتا ومالنتي ugu horeysay aan ololaha nadaafada ee gobolka Banaadir ama Soomaaliya oo dhan laakiin aan ka bilaabay gobolka Banaadir sida madaxweynaha uu ku baaqay in bil walba laga helo 2 saacadood muwaadin kasta oo aan ku jirnaa anaga oo dhan waxa sharafnaa maanta inuu sidoo kale nala joogo wasiirka dowladda madaxtooyada iyo dhamaan dadka kale ee gobolka Banaadir madaxdeeda iyo waxa nala joogo sidoo kale gudoomiyihii hore ee mada aan xamrooyin walaalkay Saciid iyo gudoomiyaha عمر شريف مايه عمر جاك لو يقنو marka ayagana way nagu soo bixeen marka waxaan dhiraa wali muwaadin oo fadlan nagala qayb qaado waxaan ku celinaa kelmadii ahayd degmo aan nadiif ahayn dalka way ka hartaa marka waxaan ka codsanayaa shaqaalaha xataa ciidanka nawaardiyeenayo xataa security-ga dalcadka fadlan maanta nadaafadu waardiyaha waxay ka bilaabataa qof walba oo qorigiisa wata ama qof walba oo nala socda xitaa haddii aadan haysan mid aan wax ku xaaqdid ama waxa ku qaadid aan waxa wasaqda meesha taalo waxaan ka codsanaynaa waxa hortaada yaalo ama han noqdo aan daasad han noqoto ama caag han noqdo wax kasta horta fadlan gacantaada waxay qabato qabo haduu dhagax noqdo meesha ka hagaaji waajib wax ku saaran fadlan waajib ku saaran maanta waa nadaafad waajibka ilaalada maanta waxa ka horeysa ka nadaafad marka nadaafadaan ku baaqaynaa waa halkaan nooga bilaabanaysa insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa maasantii أو قدامي ماله قشن يلا في عمشان الفراغ أو حاجة يمنع ماله قشن يلا أفكر طبعا تحكم حسنا يا الله عرض الطلب بالله بيننا ها يا عباس كيف ما عياد اللفتر كده صوص عيادة انت اللي كينا حررنا ولا سهولة صوت دين عنها اللوري حررنا ها دين عنها اللوري حررنا فير حالني انت عرض انت اللو ده انت اللو ده عرض فير عرض انت اللو ده يا
عرض انت اوكي اوكي عرض انت لو ودايا كان خير عرضان حقها الله وضع عرض ما اعرف عرضان حقها اللي جديد كادو سيسدو بس عشان لك هو هنا كقدر غير هذا القدر عن قيبتها ما انت عرض اللي قحط هاي مقدشو اسمها حرم تمام الدول كبنادق نظافة وأنا لقيت سنين هاي ما شاء الله أنا تعسيس صبح 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 إله ولا وين والله صبح ديب عبد العزيز ديب صبح دم الحاجة نقول هنا Umberto di Savoia, romanamente. بسم الله الرحمن الرحيم. Excellency, waxaa jeclaan lahayd shacbiga Soomaaliyeed ee fursadda u helay inay ka daawadaan si toos ah barta xildhibaan publications maxaa dhihi lahayd ambassador اللهم صل على محمد وواح وغفانه وواح ورمرأة دليردي قدوميه وزيركي مدحتويدا دبلوماسيينتي حلباندي شقاله هويويكي عسكرتي عيدمدي إن أي كقيب قاتان والله نظافة مانتا ugu horeeyo ee ka bilowda xarunta weyn ee dawladda hoose aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dadka dibaddana waxaan leeyahay soo kaalmeeya idinkana dhaqaale ahaan iyo niyad ahaan u soo duceeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam abay waa laga duubaa waxaa ila joogta fanaanad ambiyo jeesto oo ka mid ahayd fanaaniinta gobollada qaranka ee waaberi waxay ka mid tahay dadka Soomaalida ah ee saakay u dareeray inay qashinka dhex yaalla magaalada Muqdisho ka xaqaan ama ka ururiyaan iyaga oo ka jawaabaya baaqi uu dhawaan soo saaray gudoomiyaha gobolka Banaadir maxay kula tahay shaqada aad saakay qaybta ka tahay ee ka soconaysa maamulka gobolka Banaadir والله وشقة أنا هذه أدوك فرح سنة هاي
sababtu waxay tahay anagu daan fanaaniintu waa wax qurux badan waa wax yani fani oo macaan oo qurux badan يعني هدي ودكودي دولكودي oo wasaqya heelta fanimada waxba tareeyeen saas darteed damiirkayga ayaa wuxuu siiyay maanta aniga oo maarta fanaan qaran ambijeesta ah ina dhulkayga dhinacayga ka xaqo because dhulka wada leena fanaanada aan gurigayga fadhina ma soconayso waan qaranka loo shaqeeyaa waa in dhulka la nadiifiyaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Mr Taabit amarkiisa ayaan ku shaqeynaynaa haddaan fanaaniinayda sportina iyo dana haweenka qaranka oo gobolka Banaadir aanay maxaad ugu baaqaysaa qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolka Banaadir iyo dadka Soomaaliyeed ee fursad u helay inay si toos ah kaaga daawadaan magaalada Muqdisho wallahi anigu waxaan dhiilaa in gobolka Banaadir dadka ku nool dadka gobolka Banaadir ku nool waa inay quruxsadaan magaaladooda nadiifsadaan waxaa la yiri wadan huban adduunyada ummadii aan haysan nololku ma hawooto dayigu lama huraaniyo hoy dugaala weeyaan habadku irmaaniyo hanti dhaxala weeyaan duulkiisa aan hanan laga hagiyo barqaa laga horo hunga laga badaa heerarkiisi baan nahay dalkayaga dhiigaan u horinaynaa dalkayaga naftaan u horaynaa dalkayaga Allah ku dhowro adduun iyo aakhiro waxaan rajaynayaa in shacbiga Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan adduunkan dushiisa ay dhageysanayaan inta badan ama ay maqli doonaan fariintii qiimaha lahayd ee aad dirtay waxaan ku leeyahay hambalyo iyo hawl wanaagsan waa mahadsantahay Cabdi Xildhibaan thank you aad u mahadsantahay dalka loo shaqeeyaan leenahay fanaaniintu ha shaqeeyaan